dhirtu waa mid ka mid a ilaha laga soo saaro dawooyinka uu aadamuhu u adeegsado inuu isaga daweeyo cudurrada isagana ilaaliyo kadib dadaal aqooneed iyo baaris waqti dheer. cilmi-baaristan waxay ku qotantay in aan isbarbardhig ku sameyno dhirtaasoo ah dhir laga isticmaalo waddanka waxaan loo isticmaalaa qaab traditional ah yacni way jirtaa in oo daawo laga soo subsho oo source of drug ahaan loo isticmaalo dhirta waa waxyaabaha meelaha laga keenay ka mid ah daawada ama daawo in la keeno in dhir la keeno in animal la keeno in mineral la keeno in warshad ahaan loo soo haray 12 arday oo ka mid ah ardayda sanadkan dhameysay kulliyadda culuumta caafimaadka ee jaamacadda Salaam gaar ahaan qaybta shaybaarka oo u qaybsan 6 koox ayaa cilmi baaris qaatay hal sano ku sameeyay 6 geed oo ka mid ah dhirta dalkeena ka baxda oo qaarkood si daawo dhaqameed loo isticmaalo balse ardaydu waxa uu baaritaankoodu ku qotomay inay si cilmi ah u daraaseeyaan awoodda ay geedahan u leeyihiin inay dilaan noolayaasha sababa cudurrada qaarkood sida cudurrada ku dhaca maqaarka dheefshiidka kaadi mareenka tiifowga sanbabada iyo cudurro kale. dhirteena haddaan magac ahaan u sheego waxaa waaye xabasowdada oo geed aad looga yaqaano waddanka ah iyo diinsiga maadaama dadka si caadi iskaga isticmaalaan uusan qofka ogeyn xanuunka uu isticmaalayo meesha specific ah oo dhirtaas ay saameynayso oo iyo xanuunka inta uga bogsanayo uusan ogeyn in anagna tijaabo ku sameyno oo aan la wadaagno bulshada. isbarbardhigga aan ku sameynayno waxay tahay maadaama horey looga subshay cilmi baarid oo anaga aan ugu horeynin yacni dad kale ay ku sameeyeen in ay dili karto bacteria waa wax cad laakiin waxa isbarbardhig ku sameynay kee labadooda weyn oo in badan bacteriyada dili kara isbarbardhiggan uu ku qoto xulbada iyo dhagayaraha oo ka mid ah geedaha aynu isticmaalno mararka qaarkoodna si daawo dhaqameed loo adeegsado ayaa si cilmi ah baaritaan lagu sameeyay iyadoo oo la marayo hanaan cilmi baariseed oo aqoon ku dhisan. waxaa noo soo baxday xulbada iyo dhagayaraha in ay dili karaan bakteeriyooyinka mid labaadna waxay tahay xaddiga ugu yar ee oo ku dili karaan bakteeriyada ayadana way noo soo baxday nasiib wanaag natiijooyinka dhan aan filayn waxay noqdeen positive xulbada waa yacni iyo dhagayaraha waa kuwa aad qani u ah bakteeriyooyinka isticmaalay waxay sababaan E. coli oo kale waxay sababtaa cudurrada ku dhaca kaadi mareenka S. aureus oo kale waxay sababtaa cudurrada ku dhaca maqaarka waxa kale oo isticmaalnay Pseudomonas oo sababto cudurrada ku dhaca sanbaba xulbadi waaye waxa uu isticmaalnay concentration badan boqolka kale asigoo buyur ah ayaan isticmaalnay waxad mar ka dambeys concentrationada waa si yareenin ilaa 25 aan ka gaarno. Axmed Cumar Cabdullaahi oo ka mid ah ardayda daraasadda sameysay ayaa groupkiisu waxa uu si gaar ah cilmi baaris ugu sameeyay malabka iyo sanjabiisha waxaana u soo baxday natiijo ah inay awood u leeyihiin inay dilaan noolayaasha dhaliya cudurrada qaarkood. cilmi baarisdu waxay ku saabsan tahay malabka sanjabiil sida awood ay u leeyihiin inay dilaan bakteeriyada malabka sanjabiilka labadaba waan tijaabinay waxaan ku tijaabinay dhowr bakteeriyo oo dhibaatooyin ku haya bini'aadanka bakteeriyadaasna waxaa ka mid ah wax loo yaqaan salmonella ayaa ka mid ah oo sababto typhoid ama cudurka u taqaan tiifowga Soomaalida sidoo kale shageela ayaa ka mid ah oo sababta dysentery ama wax loo yaqaan axal meeshan waxa yaala hadda wax loo yaqaan eco wax loo yaqaan salmonella typhoid ayaa ku tijaabinay meeshan waxaan sameynay marka dhowr concentration ayaa sameynay oo sida uu ogaan marka meesha ugu yar ay ku dili karto bakteeriyada sida uu ogaano. dabcan waad garanaysaa waxaan gacanta ku hayaa geed talaal oo ka mid ah geedaha cilmi baarista ay ku sameeyeen ardaydan waxay ogaadeen in geed talaalku awood u leeyahay in lagu dilo bakteeriyada markaas sababta cudurrada ku dhaca maqaarka iyo sidoo kale tiifowga taasi micnaheedu ma aha in loo isticmaali karo si dawo ah haatan geed talaalka cilmi baaristu ardaydu sameeyeen kaliya waxay ku eg tahay in ay ogaadeen in geed talaalku awood buuxda u leeyahay in uu dilo ama uu dhimo koritaanka iyo waliba markaas awoodda bakteeriyada sababta cudurrada ku dhaca maqaarka iyo sidoo kale tiifowga. ka gadaal 4 sano ay soo wadeen waxbarashada jaamacadda maanta waxa ay gaareen natiijo wax ku ool ah oo faa'iido u leh ummadda Soomaaliyeed taasoo loo maray habraac cilmi baariseed oo ku saleysan tijaabooyin iyo cadeymo. waxaan ka marqaati kacaynaa ardadan in ayaga sameeyeen cilmi baaristan muddo dheerna ay ka qaadatay sanad ah juhdi badan ay galeen ayaga oo kaashanaya supervisorkooda laabkooda waxaan leenahay marka cilmi baaristan waa cilmi baaris sax ah ay u baahan tahay dalka xilliga la joogo iyo problemada ka jira